kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Baadisooc Media 17kii bishii 9aad sanada 2020 qodobada warkeena ugu door korona waxa kamid ah xubno dheeriya ku soo biiray shirka farmaajo iyo madax goboleedyada ururka IGAD oo ka digay roobab mahiigaan oo ku soo wajahan Soomaaliya hadii Allaha awood la raali ka noqdo mar kale iyo soo noqod wanaagsan iyo warkii oo fidsan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya shirka xaflada Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo madax goboleedyada ayaa sheegay inay ku soo bireen xubno kale oo dheeriya wararka ayaa sheegay in shirka uu xalay dib u bilowday ku soo bireen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo siyaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ku soo birista Mahdi ayaa la sheegay in ujeedku uu yahay inuu shirka ku matalo beelaha daga gobolada waqooyi oo aan lahayn maamul goboleed shirka u fariista balse ma xad sababtoo Mursal ugu soo biray wararka qaar ayaa sheegay inay ku soo birista Mursal ay muhiim sababtoo ah heshiis kasta oo la gaaro wax la horgeyn doona baarlamaanka sida daraadeed waxa laga fursan waayay inuu Mursal tala ku yeesho qodobada lagu heshiinayo ku soo biirista Mursal iyo Mahdi ayaa sidoo kale taageero siin karta madaxweynaha xilli ay u muuqato inta badan madax goboleedyadu ay isku aragti ka noqdeen qodobada ugu xoogan ee la isku hayo wararka ayaa sheegay in qodobada ay isku raacsan yihiin maamul goboleedyada ay kamid tahay in la yareeyo tirada ergooyinka codeynaysa iyo in meesha laga saaro hanaanka xisbiyada iyo in doorashadu ay ku dhacdo hal maalin dhammaan qodobada ayaa u muuqda kuwa hal ujeedo ay ka leeyihiin maamul goboleedyada oo ay doonayaan inay kaalin muuqdo ku yeeshaan xildhibaanada cusub urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in la qaato tallaabooyin ku habboon si looga hortago khatarta ka dhalan karta roobab mahiigaan oo la filayay inay ka daan Soomaaliya bartamaha bisha Sebtembar 2020 roobabkan culus oo ka sareeya 100 mm ayaa la filayay inay ka daan gobolada waqooyi bari Soomaaliya Puntland iyo meelo yar oo kamid ah bartamaha Itoobiya sida ay sheegtay bayaanka IGAD bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in roobab fudud oo ka yar 50 mm la filayay inay ka daan qaybo kamid ah waqooyiga koonfurta Soomaaliya dhul xeebeedka Djibouti Puntland ayaa wasaaradda deegaanka beeraha isbedelka cimilada waxay ku wargelisay dadka degan deegaanada dhulkooda hooseeyo meelaha biyo mareernada iyo tugaga inay ka tooradaan daadadka ka dhalan kara roobabkan digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya u diyaar garoobayso xilli roobeedka dayrta